Assalaamu calaykum. Sheekadeenna waxay ku saabsan tahay tan yar ayaa waxay la joogi jirtay eedadeed. Mar walba eedadeed waxay necbaan jirtay inay wax akhriso, waxayna jeclayd inay mar walba u shaqayso oo noqoto mid guriga ka shaqaysa. Eedadeedan waxay lahayd gabadh kale oo shaqada kala qaybsan jireen, laakiin gabadheeda caajisad bay ahayd oo shaqada way diidi jirtay. Markay diiddo shaqada, gabadha yar bay u iman jirtay ku odhan jirtay gabadha kaa yar ee sanadaha kaa yar bad keenanaysa. Markaasay ku odhan jirtay sidee ayaan kala idhaahdaa casharka iyo guriga maxaana sameeyaa. Islaantuna waa ay dharbaaxi jirtay waxayna ku odhan jirtay gabadha kaa yar ha ku meeraysane orod waxyaabaha kale qabo. Gabadhu markay qabatana waa ay ooyi jirtay, waayo waxay xasuusan jirtay xilliyaday ku nooleed nolosha fiicanayd ee hooyadeedna joogtay, aabbaheedna wuu la joogay. Hooyadeed waa ay dhimatay, odayganna markii dambe waxa uu soo guursaday islaantan. Islaantanna waxa ay dhashay gabadh iyadun la mida laakiin da'da ka yar. Inta faraha badan lana waxay ahayd gabadhaasi gabadh caajisada oo shaqada loo kala qaybiyo inteeda aan ka soo bixin oo mar walba doonta inay gabadhan kale la shaqayso. Wax walba gabadhan ayaa soo dhammayn jirtay. Gabadhan waxay odhan jirtay aniga ayaa weelka ka meydhaya, orod adigu wax walba dhammee. Markay weelka u timaaday aragtay in weelku badan yahayna dib ayay u raadin jirtay wax kale ay samayso. Markaasay ku odhan jirtay maanta lug ayaa xanuunaysa weelkan ayga meer qabanaa kale. Gabadha markay ku xanaaqday ku tiraahdo waxaan qabanayaa ma jirto ee adigu kaale qabo waa ay diidi jirtay. Hooyadeed markay qayladay gabadhan yar isku qaylinaya markay maqasho iyadoo cararaysa ayay guriga iman jirtay. Markaasay ku odhanaysay imika ayaa soo gashay, gabadha yar maxaad ugaga qaylaysiinaysaa. Badhinaha ku odhan jirtay hooyo lug ayaa xanuunaysa babguuri weelkayga maadmaanto kaliya weyna diidan tahay qadadiina way ugu gumaysanaysaa. Maantana gabadha kale ayay aqaabi jirtay ha ku odhan jirtay ayaa dhaqso gabadha ka yar baad ku meerasata wabkoogahay. Markaasay ku odhan jirtay hooyo meel xanuunaysa ma jirto ee ogaan ayay waxaan oo dhan u samaynaysaa. Gabadhuna waxay ku odhan jirtay ma ogtahay waxyaabahay gabadhaydan oo dhan leedahay caafimaadkayga adu ma warbaad ka haysa. Aabbaheed xilliyada qaar waxa uu iman jiray maalmaha isbuuca ka mid a maalin ayuu iman jiray. Markuu imaado waxau ahaa gabadhiisoo faraxsan ayuu iman jiray oo sugaysa. Markuu taala yara sheekaysto uu ku idhaahdo aab iska waran sidee ayaa tahay ayaa marka dambe waxa uu weydiin jiray hablaayo maad aragteen, hablaayo maxay igu soo carari laadaay. Gabadha yar waxay ku odhan jirtay aabba sooniya anigu ku hor jooga aniga maanad arkayn, laakiinse wuxuu ku odhan jiray hablaayo aawe. Markaas islaanta ku odhanaysay waay waxbay baranaysaa anaag kugu yeedhi. Laakiin markuu idhaahdo aniga ayaa soo eegay haddee qolkayga ku jirtay iska daa. Gabadha yar ayaa jiidi jirtay ku odhan jirtay aabba kaalig waxaa rabaa inaan kaaga sheekeeye. Gabadha yar jeedinaysana islaanta ayaa u dhaafi jirtay ku odhan jirtay isug anagaa kugu yeedhi gabadhaada yar rabtayna kula sheekaysato loo sii sheekayso. Soo cararaysana guriga waa ay ka soo bixi jirto qolka ay ku jirto. Gabadha meesha joogtay u iman jirtay waxay ku odhan jirtay naagka kacdo meeshan aabbahay ayaa yimid weelkana faraha ka qaad oo orod. Badhinaha ku odhan jirtay iska daabahay gu arkay meeshan ku jira halkan igu yeedh maaba maxaad uga baqanaysa. Isna waxay ku odhan jirtay maya hadduu gaarko iyo qabsanay hadduu i qabsadana guriga maalin kuma sii noolaadi sida weelka faraha meelo orod aabbaha u tag. Gabadhu iyagoo faraxsan ayay aabbaheed ku soo carari jirtay. Markaasay ku odhan jirtay aabba waa aan kuu xiisnay maxaad toddobaadkii mar u timaada maxaad mar walba noogu iman weyd. Markaasuu ku odhan jiray shaqadayda ayay ku daa mar walba waxaan jeclaa inaan adiga ku ag joogo. Badhayr waxay ku tiri maandhow waxaan arkay dad ku ciyaaraya waxyaabaha carruurta ay ku ciyaaraana ka war haddada geyso. Odaygu wuxuu ku dhawaa aan ku geynaya xilligeed rabtidba inaan yara nasto. Gabadhiisii kale ayaa hadasho ku tiri aabba anigana igee waxaa rabaa in aan tago meesha ay tagiysay. Iyadana wuxuu ku uri lagaama reebaye ee aroorta inoo gaadho waanna sono. Aroortii markay gaadhay odaygii waa uu diyaariyey carruurtii waa uuna kaxeeyey. Afartoodii qofna waa israaceen. Gabadhuna aad ayay u faraxsanay in la geynayo meel ay ku ciyaarto. Gabadhuna si aad ayay ciyaaraysay oo wax fara badanna waa ay ciyaartay. Abayeedna waxa uu ku lahaa mid kaa kale eeg kaa kale eeg. Mar walbana gabadha kale ayaa ku lahayd meeshaad ugu jabinaysaa ka daadeg. Abayeedna waxa uu ku yidhi miisaankaada buma dhaantide gabadha yar nabadgelyo waxaad samaysaa waxaad ciyaari kartidun ciyaar. Geedna waxay ku odhan jirtay iyada ayaad iga jeceshahay oo aniga waadayna eg tahay. Islaanta kalena waa ay kala tuuri jirtay waxay ku odhan jirtay naftayda yar maxaa ku saaray xitaa hadday ku tiraahdo hadal soo walaala ma ah. Isaguna waxa ku odhan jiray mayada ayaa ka miisaan yar mar walba waa ay caayaysaa gabadha. Iyadaas onsa bay ku tiri walaasha raaligeliyo waxaad samaysaa u banee meeshana ha ku ciyaartee.
walaashiidna si fiican ayay u ciyaarasay. Ta kale laakiin mar walba waa ay necbayd markay aragto aabbaheedu ciyaarsiinaysa. Markaasay ku odhan jirta hooyo daawo, dhowrka cisho jooga, nolol fiican ayuu ku noolaysiiyaa, anigana wuu necab yahay. Ka tag bay ku odhan jirtay islaanta, aniga ayaa garanaya noocan u geli doonay adigu iska aamu. Ciyaartii waxyaabihii markay ka soo noqdeen, gurigii ayay ku soo noqdeen. Gabadhuna si aad ayay ugu faraxsaneyd. Maalintii dambe, odaygu waxay gaadhay xilligu tagay. Waxa uuna ku waa intagay waxaa samaysa isa sii ilaali oo waxbarashadaada si fiican u sii dhigo. Waxaana samaysa moobilkan qari. Markaad wax u baahan tahay, ila soo hadal oo halkaa iga soo weydiiso. Inateeda waxay ku tiri aad waad mahadsan tahay. Aad iyo aadna waan kugu da'aynaya. Odaygii sidii ayuu ku tagay. Islaantiina iyo gabadhii kalena intaan geesadayeen odaygaasi tago. Iyadoo maalin isku wulada ayay islaanta ku soo carartay. Maanta way u timid waxay ku tiri dhowr cisho ayaan kaa dulmeeray waxa samaysa. Duleygii muuna kaa bixi. Gabadhii waxay ku tiri weli wuu hayaa lafahoo dhan waa ay jajabay yihiin ee markuu dulayga baxayaan soo kacaya. Islaanta waxay ku tiri waxaasoo dhan ogaan ayaad u samaynaysaa. Wayna dhirbaaxday. Waxayna ku tiri weligaaba ha soo kicin haddii aad rabtid oo meesha ku dhimo. Idka dawooyinka ku siinaysana waad arki doontaa. Badhii yareed aabbaheed ayay garaacatay. Aabbaheed markuu arkay iyagoo ooyaysa wuxuu ku yidhi aabba maxaa kugu dhacay? Maxaad la ooyaysaa? Maxaad u baahan tahay? Markaasay ku tiri ii soo noqo. Dulay aad u xun baa i haya. Gabadhiina waxay ku tiri dawooyin cuntaba kuma siinayo. Waayo waad ii shaqayn weyday. Waxayna igu tiri ku dhima haddaad rabtid furaashka. Markaasuu ku yidhi isug aniga ayaa xaafadda imanaya oo dib ayaan u soo noqonayaa. Odaygii dib ayuu xaafaddii ugu soo noqday. Gurigiina waa uu soo galay. Islaantii gabadhii yareed oo TV-ga daawanaya waxay arkeen wax soo socda. Markay arkeen ayay yidhaahdeen maxaa ku soo celiyey maanta? Soo adiga xilliga hore soo noqday. Maalin toddobaadkii joogeen shaqada. Odaygii markii dambe waxa uu ku yidhi gabadhaydii aaway hablaayay soo baxa. Maynataydii waxaad ii sheegtaa qofkii kugu yidhi furaashka ku dhima haddii aad rabtid. Gabadhiina waxay tiri waa hablaayo ayay igu tiri ku dhimo dawana ku sii maaya haddii aad ii shaqo weydo. Islaantii markii dambe waa ay qayliday waxayna ku tiri anigu maanigaa waxaa idhi. Isaguna waxa uu ku yidhi waxaa samaysaa albaabkayga baxadigay gabadhaadu. Imana rabo gabadhaydana anigaa kobsanay. Waxay ku tiri iddaa aan kula joogay gabadhaaguna waa ay ku baahan tahay. Isagu waxa uu ku yidhi gabadhayda biilkeegoo dhan aniga ayaa siinaya laakiin tan kale ayaa dilaysaa waxaa samaysaa kaxeeyo iyada korso tan aniga ayaa korsanaya. Walba waa u oyday waxayna ku tiri gabadhaada yar yaduba waa ay ku baahan tahay tan kale ha ka raacin. Waxa uu ku yidhi tan ayaan hortiin bartay idinkay ma garanay waxaa samaysid. Albaabka labadiinaba taabsado. Islaantii iyo gabadhiina sidii ayay ku tiriyeen. Odayguna gurigii ayuu ka bixiyey gabadhii yareed guri kalena waa u kariyey shaqadiisa u dhow. Sidaas bayna gabadhii iyo aabbaheed iskula noolaayeen. Sheekadeenina intaa ayay ku dhammaatay.